الراعي أوران ما يوحى سقطت ويدك الشجوع وقت يوم تشرين الجليانها وتكون العرسان من الجودة هذا يجودها قبل وعاد كل العرسان رولك اللي بعتنا يدك هيست وعاد قصة حيسين بيح تفرضوا حيدتك إلا بدايه لما هو ولا صعدنا الأغوار وكبل أولي وعاد قبل كان يسكت دقة وعقوره وعيد بالجليانها يدتك إلا أوريا الله بدايه وحنا لقب بلا بهاي هذه الدولة iyadoo wax badan sidii aanu rabnay aan iyo qabsoon xagga nabadgelyada waxna waa xumaadeen waxna waa soo hagaageen way xumaadeen magaalada dibadda sida dagaalka hadda Xusay iyo kuwa kale badan baa ka dhacay runtii kula ahaa mushkilad ku ahaa deegaanada iyo guud ahaan gobolka waxna way iska bedeleen waxay iska bedeleen magaalada gudaheeda amnigii wax badan bay iska bedelay meel aan isagay waa lagu kalsoonaan karaa iyo maanta baraya aad baan ugu mahad celinaya anoo hadhow xusi doono ciidamada nabadgelyada dadkiina dhaafay boqolkii 65 waa abaar bishan ay ku tiro gobolka waxa saameyn ku bilaabanaya biyo la'aan xooga taana in madaxa lagu hayo iyadoo tii hore biyihii joogtada deegaanku baqan yihiin hawd iyo lugaal waa isku mid labadaba magaalada gudaheeda biyo la'aan noqonaysa meesha hadda looga soo qaado marka la qiyaas waaba jiray baaqiyo aanu ka soo saaray anagoo isku dhow wasaaradda hawlaha dawladda hoose iyo maamulkaba maamulkiisa waxa iska leh dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud laakiin waa wax soo dhaafa oo runtii caqabada ugu weyn ku ah magaalada iyo deegaanka mowqafka aan ka qaatay markii aanu dhimi in badan baan ka shirnay cabashadiinu heerkii gaarsiisay waa la arkay in maamulka wixii ay gacanta ku hayaan dawladda hoose ee sharciyana ay fuliyaan wixii ka baxsan ee lagu muraysan yahay ay dib loo keenaan soo liiskareeya guddi gobol aan loo fadhiisano loo sameeyo guddi cadaalad mushkiladda dhulku waa mushkilad sanawaad soo wada noqonaysa ma aha xitaa wax dawladda hoose u heli karto oo control karto hindisaha aanu ku soconay anigu aan rabaa meel mariya waxa in wixii sharciyada dawladda hoose ay shaqadiisa dejiso la kala saaro koo wixii lagu muraysan yahay murankaana badan la soo saaro dawladda hoose waxaanu ka codsanay oo siinay inay soo liiskareeyaan loo soo gudbiyo heer gobol kadibna loo saaro guddi khilaafaad cadaalad la bado muddada 6 bilood aan joojinay la kala saaro mushkiladda hadhowna loo sameeyo qawaaniin sharci ku socdo waan ku celinayaa halkii uu taagan yahay TV-ga iyo dhaqan ahaan mas'uuliyadda iyo ka hadalkeeda iyo laga yooyooto 3-4 jeer baan arkay wiilgeeyada TV-ga laga hadlayo marna kaba jawaabin hadeerna inaa wax ku saxaabay iguma jirto dhaqanka mas'uuliyadda waxaan rabaa maalintii shil ku dhacay anagoo fadhina shil ka dhacay oo fadhina arinta lafteeda guddi nabadgelyo ahaan dabeedna taliyaha ciidanka loo soo sheegay sidii baan ku baxlay isku mar baan tagnay taliyaha ciidanku meesha ka dhacay maalintii ka horeysay askari baan naga dhaawacay luka jabal oo dhaqtar loo qaaday kala dhaawacayo cagafta dawladda hoose gashay baa maayirka walaal qasaxay maayirka waalu yaro waxa ku yiri waxay ku dhaceen wuxuu gudoomiye shaabada waa la xaday annagu baa luxil wax kale oran وكلا واحد وقبت سيدو الباير كالباير والله صاحبنا والله لكن واحد ربا مشكلة ذا الشراء وما بحلا قفر إلى قرآن واحد لويبي مع المحاس يلو مشكلة ذا سكن علي لما قضوا وكلا ربا إلى الحصية لما ذا اللي ما المعنى تيفي كاركي يرهق وسير راينا كهذا منو حالا يقول تيفي قابلنا والله يفرصوني كان يدادك بحر حلو ودادك حفلاني بقالا يكون قبليان ودادك بعد هذه qodobka kale waxa master plan ama shaybka magaalada soo noqonayso wasaaradda hawlaha guud soo diyaaristay intaas saddexeeyay duruufo kale oo siyaasadeed oo ku galaada gobolka hadeerna ku cusba sida dawladda dhinaceeda doorashooyinka ka jira oo had iyo goor saameyn ku yeelata deegaanka iyo gobolka maadaama ay xaaladahaas jiraan gobolka waxa ka dhacaya ee amniga quseeya ama maamulka hadii lix wasiir joogan wasiirka waxbarashada hadeer inala jooga hadii shan kale yimaadaan oo wax ka xumaadaan wasiirada la weydiin maayo iyagoo gacanta ku haya waxay fulaan gobolka iyo ciidamada nabadgelyada mas'uuliyadda gobolka qaado anigoo taa ka duulaya waxaan go'aansaday waxaan tala ku siiyay duruufahaas oo dhan baa jira dhulkiina xal uma hayno 3 qof baa ku dhintay badna waa ku dhaawacmay shalay baynu waraaq ka soo saarnay aynu dib u dhigno inta duruufaha kale siyaasaddu ila dhaafayaan waxay gelin aan ka horeysiino waxaan filayaa in ay inaga imaan doonto reaction adag arinta wasiirka ma qancin qolada dawladda hoose dalka sagaalaad ma qancin anigoo ka taxadiraya dhaqanka dawladnimada ilaalinaya iyo siyaasadda mise waxa la hadlay wasiirka amniga aniga wasiirka iyo madaxweynaha iga sareeyo
waxaan wargeliyay wasiirka amniga iyo arrimaha dibadda arrintaas saasaan u arkaa haddaad bixinaysana ka wasiirahaan go-aan ka gaadha haddii kalena dee anigu saasaan u arkaa taladii aan bixiyey dacway noqotay ra'yigaygiina dacwuu noqday taa haddeerna halkii baan qabaa toon balaanku waa muhiim master balaanku magaalada muhiim buu yahay wax badan buu soo saarayaa in ay keenaan waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha iyo wasiirka iyo dowladda iyo cid kastoo ka qayb qaadata laakiin waxaan qabaa wakhtigeeda in la siiyo dadweynaha inay raalli ka noqdaan iyagoo ka aaminka baxay wixii horeba in loo hagaajiyo horta dadweynaha wararta intoodii hore aanu hagaajino markaynu intii hore u hagaajinay cadaalad u samayno cagafta markaasaynu gelinayna khasab bayna ku qaadanaya iyagoo aan meydkoodiiba dhex yaallo tii hore ka taagan walaalayaal cagafta dib looga dhiga ma diidani waan soo dhowaynayaa waan ku kalsoonahay waa baahi magaalada u baahan tahay laakiin wakhtigeedana hala siiyo dadka iyo maamulka iyo wasaaradduna ha iska arkay dadka arrinta wasiirku shir buu markiisii qabtayoo infact ma odhan barasaab kitoon balaami wuxuu yidhi dadka beesha puntland baa loogu xafladeeyaa lama xidhxidho puntland 9 nin baa ka sharaxan oo gobolka u dhashay dadkana waynu naqaanaa dhaqankiisa iyo ra'yiga iyo mentaalitiga ummadda beesha taal in badan baanu ka dadaalnay hadda waxay doonto samaynaysaa gobolka duruufahan sheegayaa ku gadaaban waraaqaanu ka soo saarnay heer maamul oo dhan annagoo ah hodheelada in laga joojiyo maamul baa beesha jooga marka hore ma soo dhaweynaya arrimaha noocaas intaanan gelin arrimaha noocaas in dowlado kale iyo meelo kale loogu xafladeeyo oo qaar aan deegaanka ku dhalan nabadgelyada wax lagu yeelo mar horena waa sheegay ciidamaduna kaba gardarra dadka xaflad baa guri hoos kala badh baa lagu qabtay oo yigoori baa lagu qabtay oo xudub baa lagu qabtay oo adh cadeeyaa lagu qabtay oo guryaha hoostooda lagu qabtaa dadka meesha deganna waa aqaan 9 nin waa sharaxay intee leeg baan xidhi karaa nin berigi dadku waxay isweydiin jiray baa nin waxaa lagu yidhi wargamaan ka waran oo geela ka waran oo rag ka waran oo markii wax walba la weydiiyey baa la yidhi haween ka waran war dumar ka waran buu yidhi wuxuu yidhi inteedana ha haysato afkaagana ka hayso mid baa ku yidhi garan mayse haddaba ninka labada fiican la murmay baa iga badiyey la weydiiyey buu yidhi kan la tirsadaa iga badiyey kaah la soo weydiiyey